tusaale ahaan halkan waxaynu ku haysanaa arday ka kooban 12 arday sidoo kale xaggan waxaynu ku haysanaa marks ama darajooyinka ay keeneen ardaydaas dhankan waxaa nagu qoran ranki oo la mid ah kaalinta ama kala sarreynta ardaydaas haddaba casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka ugu fudud aan ku soo saari karno rankiga ama kala sarreynta ama kaalimihii ay kala galeen ardaydani waxaad ku bilaabaysaa calaamadda equal waxaad qoraysaa rank dabeetana waxaad dooranaysaa ardayga koowaad darajada uu keenay kadib waxaad taabanaysaa hakad ama koma kadib waxaad dooranaysaa darajooyinka ardayda dhammaan waxaad ka soo bilaabaysaa guuleed ilaa caasha guuleed ayaad riixaysaa dabeetana hoos baad u jeedaysaa ilaa aad ka gaarayso darajada ugu hooseysa oo ah darajada caasha intaa kadib waxaad taabanaysaa calaamadda F4 ee keyboardka xaggiisa sare ku taala kadibna waxaad xiraysaa bishii kuu furnayd intaa kadib waxaad ku dhufanaysaa calaamadda enter waxay noo soo baxay ardayga ugu horeeya guuleeda inuu ku jiro kaalinta afraad haddaba si aan u ogaano ardayda kalena waxaynu tegaynaa guuleed boxkiisa qaybta ugu hooseysa kadib calaamadda karsarka markay noo noqoto isku talaab dhuuban ayayna waxaynu siinaynaa double click sidaas waxay noogu soo baxaya dhammaan ardayda kaalima ay kala galeen halkanna waa isla table-kii ama jaantuskii oo af Soomaali ka dhignay haddayna hal mar ku xidhan waxay noqonaysaa sidan kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkan waxaana ku soo baxaya dhammaan kaalimaha ay kala galeen ardaydu